قصة رومانتنا كله ذاك وحوايا قصة حقيقية وحي دحمرتي أنيقا إيو هوية صومالية حدا بقى أنيقا إيو هوية ذا الصومالية وحنا دحمري محاواية محانا كفائدي سنينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئيو قصة عصب. قصة رومانتي إنان كلو ذا وحي كمتهاي قصوين بدن أو إسومرو. قصة مركا سببا أدورتي سببتا أدورتيني حدا أغان دونتا إن شاء الله تعالى. مدلقة جوغو دور سنة 4 سنة كدوات وحا إسو وعدي مامو نمبر سومالي 252 كبلاوضو ومر بدني كسوع العليسي هذه مركز دم عودي دوبتي وحيتري يقب إنه كل حط له ربح واكا قبتي ولا حطلي ويدعوسي سفي عني ودعوسي سبيكر كان فرتي حتى قعمه كان كروتاي آمين عندها مركي دعوة دميسي كدي وحي وتري هل وحان كا عدسنا هوي وحي تري وحان كا عدسنا وحا واي وحان آدو دقيستا دعوين كاغان دقيستاي wax badanna waa bartay tiri laakiin waxa ahay hooyo weyna ahay waxaan jeclaa lahaa ducooyinka ina soo qortid af carabina ma ka saayitiri af Soomaaliya raba ina ku soo qortid ilmihiga qaar kamid af Soomaaliya anigu aqriyaan ama anigina af Soomaaliya ku aqristo ducadu waa ku cishta halkii duco inaan xifdiyo waxa laga yaabaa inay ugu qaatay bil laan waa dhageysana hiti laakiin waxaan jeclaa lahaa warqad inaan ku qorto oo markasta aan ka aqriyo xifdigayga waa adag yahay qof weyna ahay waxaan ka codsanaa marka ducooyinka inaanu soo qortid waxaan ku dhahay marka bishaarayso insha Allah taala waa soo qora haduu Ilaahay yiraahdo laakiin sometimes waa hilmaama dadka badin way dhahay ducooyinka soo qor soo raacsi laakiin waa hilmaama maamadaas fikradaas hadalkaas ay tiri maalintaas fikrada ay ugu dhalatay fikradaasna waxa waaye inaan ducooyinkan oo dhan isku aruuriyo oo af Soomaali cinwaan aaga dhigo af Soomaalina carabi markaan ku qoro مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء carabi markay ku qoranta hoosna asigoo Soomaali inaan ku qoro lana dadka qaar kood af carabi aqoonina jirta oo sida loo aqriyo inuu ka faa'iideysto fikradii maalintaas igu dhalatay waxay soo socotay dhowr sano soo socotay kadibna waxay dhashay buugan oo raba insha Allah taala wiiga soo socdo inaan Nairobi keeno oo laga faa'iideysto magaciisa la yiraahdo maalin walba farxad maamadii 4 sano ka hor soo wacday haday dhageysanayso ama ay imaqasho waxaan dhihi lahaa Ilaahay dambigaaga ha dhaafo inta igu duceyso kale Allah ku siiyo taas mid waaye mid labaadna insha Allah taala buugana ajirkiisa waa leed tan saddexaadna haddaan ogahay meesha joogtid insha Allah buuga asigoo hadiye ayaan ku soo dhiibi lahaa saaga faa'iideysatid oo aqrisatid aaga dhagtid isadeena maanta intaas ku egtahay laakiin faa'iidooyin badan ay leedahay qaar kamid ah idin sheega adigana waxa ka faa'iideystay qisadan ani maamadana dhaxmartay soo qor khayr Allah ku siiyo faa'iidada koobaad khayrka dadka loo gudbinayo waa arrin wanaagsan waaye khayrka markaa gudbisid dad wuxuu gaara ahli khayr oo gaara dadka ahli khayrkana way ka faa'iideysanayeen markay ka faa'iideystaan kadibna khayrkaagii ay khayr kale kugu sii daraayeen marka waxaan rabaa inaan dhaho dhalinyarada dacwada laga shaqeeyo khayrka dadka loo gudbiyo sidoo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yiri ballighu anni walaw aaya qofka khayrkan walaaliis la sii wadaago oo sii shargareey arrin muhiim ah oo loo baahan yahay waaye naftayda iyo tiina waxaan ku dardaarma qof walbo intuu Ilaahay ku baray dadka kale u sii gudbi hadaadan aqoonin ha ka hadlin laakiin hada adiga aqoonin culumada kale aad ku kalsoon tahay waxay soo qoreen ama waxay soo duubeen dadka kale u sii gudbi ama masaajidaha gey ama meesha wax laga faa'iideysanay gey khayr Allah ku siiyo faa'iidada labaad arrin khayr hada aragtid hadii wax maskaxdaada ku soo dhacaan qofka faa'iidada soo qoray ama darsiga soo qoray soo ama u soo comment garay hada example hadaan ku siiyo muhaadara aad ku cajibisay commentiga soo raacsi hal bakhiilin commentiga soo raacsi waxa raada muhaadara ma sha Allah waaye waxaan jeclaa lahaa tan oo kale ama tan in laga hadlo qofka duuba waxa laga bari inuu fiiriyo wallahi sometimes commentigan markaan fiiriyo qaar markay soo qoraan
waxa la soo qoraa fikrad igaga dhalataa markaas haddana ka diyaariya cashir ka diyaariya saasaa loo baahan haddaa khayr aragtid video aragtay qofka iska leh comment u soo qor haddaa rabtid inaa wacdidna wac wax wanaagsan daa ku aragtidna ugu mahadceli uguna ducooy waxaa si kale u fahamta haddaa aragtidna wac ee ka hubso intaa bannaanka ka xagxagan lahayd faa'iidada saddexaad fikrad hadday kugu soo dhacdo ha la xishoonin soo gudbi waxaa dhahday fikradaana ahaayaye maxay kula tahay arrintaanaa jirta maxay kula tahay fikradaada la soo gudbi qofka ugu munaasabsan isdhehaysidna usoo gudbi waxaa laga yaabaa fikradaada inay ka dhalato faa'iido maamadan fikradeeda kitaabkaana ka dhashtay khayr allah siiye faa'iidooyinka kalene adigan kugu soo daynaa insha allah tacaala soo qor bakhiil ha noqonine jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum waa inuu jumcada soo socoto iyo nairobi isna isku aragna hadduu ilaah yiraahdo qiso cusub noo soo gelinayna baaraka allah fiikum jazaakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu